بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، طهارة waxaan u fahmay qabayska laga qabaysanayo ama janaabo ama laga qabaysanayo caado iyo dhiigga caadada laga qabaysanayo. siyaabaha loo qabaysto saddex nooc ama saddex qaab waa sax, hal qaabna waa khalad. qaabka koobaadi waxa weeye ruuxu markuu qabayska isu diyaariyo inuu xubinka taranka dhaqo ama istijaysto, kadib wuu weysaysanaya wayse dhammaystiran oo ilaa lugaha uu dhaqayo. markuu weysaysto kadib uu biyaha isku shubaya, madaxa ka soo bilaabaya, sidaasuu ku qabaysanaya. qabayskiisa markuu dhammaysto qaabka u qabaysto wuu wayse qabaa waana qabaystay. wayse dambe inuu la yimaado uma baahna. qaabka labaadi waxa weeye markaad istijootood xubinka taranka dhaqo ayaad weysaysanaysaa. sidoo kale waysadii waxaad reebaysaa labada lugood dhiqitaankooda. xubnaha kale o dhan baad soo dhaqaysaa, wejigii, gacmihii, masixii madaxa. markaad lugaha joogto, lugaha intaadan dhaqin baad marka biyaha isku shubaysaa, waad qabaysanaysaa. qabayskaa markaad dhamaysato ayaad lugaha dhaqaysaa. sidaa waad wayse qabtaa waadna qabaysatay, uma baahnid inaad dib ka weysaysato. qaabka saddexaad waxa weeye markaad isjootood xubinka taranka dhaqdo kadib adoo weysaysaninba inaad biyaha isku shubto. ad isla niyooto waysadii iyo qabayskiiba intaad qalbiga wada gelisood niyooto inaadun biyaha isku furto, sidaa aad ku qabaysato. qabayskaa markaad dhamaysato waysena waad qabtaa waadna qabaysatay, uma baahnid inaad wayse ka dambaysiiso. saddexdaas qaab waa sax, axaadiista nabigay ku yimaadeen sal alla alay slam. qaabka afareeya waxa weeyaan waa inaad qabaysato, markaad qabayska dhamaysato kadibna aada waysada ka dambaysiiso. taasi waa khalad, waana midda aan u malay inaad u badan tihiin oo dadka badankooda ay isticmaalaan. qabays horeeya iyo wayse ka dambaysa. xadiidka caaisha fi sunan waxaa ku sugan inay tidhi nebigu sal alla alay wasalam qabayska kadib ma weysaysan jirin. waa xadiidu caaisha. ama inuu qabayskii iyo waysadii isla niyoodo, ama inuu waysadu horeyso qabaysku ka dambeeyo, sidaasuu samayn jiray. laakiin qabays horeeya iyo wayse ka dambaysaay ma ahayn dhaqankii nebi maxamed sal alla alay wasalam. wallahu aclam.